barateen cilmi ku saabsan ICT-ga iyo advanced ICT-ga. maanta waxaynu sidaan hore saynu videoga ugu dambeeyay soo dhignay waxaynu bilownay course cusub oo la yiraahdo Linux. marka qaybtii ugu horeysay baynu bilaabaynaa imika oo aynu ku qaadan doono haddii Ilaahay ku dhigo. waxaynu ku qaadan doonaa maanta cashirkeena oo aynu bilaabi doono. waxaynu ku qaadan doonaa sidee fayl loo sameeyay sidee fayl loo sameeyaa iyo sida faylal fara badan loo sameeyo. gartay in fayl la sameeyo sidee faylashii loo sameeyay. markaan faylkii sameeyo waxaan arki doonaa sida faylasha loo sameeyo, sida faylashii wax loogu qori karo, sida faylashii loo arki karo, iyo at same time sida faylal fara badan loo sameeyo. oo qodobkan labaad ayaynu inta badan arki doonaa attach faylal fara badan, more files inaad sameyso ayaynu in 1 second hal ilbiriqsi gudahood ayaad sameynaysaa ama one time. ila socda waan bilaabanaa waynu bilaabanaa insha Allah. marka horeysa waxaad soo furanaysaa maalintii ugu dambeysay waxaan cashirkii ugu dambeysay sida loogu shubo laptop ama computerka aynu soo qaadanay. Today waxaynu focus ka saaraynaa baan yidhi maxay in oo aynu dhiganaynaa maanta cashirkeennii koowaad oo ah sida faylasha loo sameeyo iyo faylal fara badan sida loo sameeyo. marka waxaan soo furaynaa marka ugu horeysa active linka yar baan soo furanaa. waa inaga niri terminal oo ah cmd daayar ayaynu inta badan isticmaali doonaa. command line interface kaas aynu aad u isticmaali doonaa oo halka shaqada ugu badan ka dhacayso. marka ugu horeysa qaabkan buu kugu soo kacayay, qaabkan ayuu kugu soo kacay. daaqada yar baa soo furanaysaa halkan saad ku aragtaan waa magacii, intaas waa magacii username-kii weeye, intana waa local host waa inta ay raacinayo weeye. halkaasay markaa shaqada ka dhacaysa, halkaas wax ku qoranaa anagu. waayo haddaba faylash ma bilaabanaa sidee loo sameynaya? haddaba waa su-aal muhiim. waxaa loo sameynaya waxaad leedahay cut baad leedahay greater than maxay space file maxay file 1 inta ku dhadays. marka file baynu sameynaynaa la yiraahdo file 1 magaciisu waa intaan. file 1 kan waxaan uga jeedaa weeye waa magac, waa name. intani waa magac bay noqonaysaa. intani maxay noqonay baan idin yidhi waa magac. intana waa qaacidadii, intana waa xeerkii iyo qaacidadii la marayay. cut waa qaacido. intana maxay noqonaysaa file 1 maxay noqonaysaa name-kii bay noqonaysaa. waa name bay noqonaysaa, magacii bay noqonaysaa. marka magaceenu failkan magaciisa waxa la yiraahdaa file 1. waayo inta markaad qorto waxaad haysaa control iyo d oo save garanaysa. inta markaad tiraahdo aad save garayso maxaad leedahay hoos baad enter baad leedahay. halkaasaad qoraal ku qoraysaa. marka qoraal baad qoray, qoraalkaad leedahay waa jimce for example. deetana waa save garanaysa. markaasaa u save garayso maxaad leedahay markaasaa u save garayso ee uu kuu save garaysmo caawa jimcaynu ku qornay meesha maaratan. caawa waxaanu qornay waa jimce. okay, intaa markaan sameeyo ayaan haddaba sidee baynu haddaba waxaan aynu qabanay, hawshan aynu qabanay sidee baynu arki karnaa? waa muhiim. waxaad qoraysaa gedit faylkii magaciisii file 1 absolutely file 1 baad qoraysaa. dabeetana way noo soo boodayay faylkii baynu arki doonaa insha Allah taala. faylkii arki doonaa waynu arki doonaa. waa kan maxaynu nidhi faylkeena magaciisa maxaa la yidhahdaa file 1. qoraalada aynu ku qornay waa kan, qoraalkeenu ku qornayna waa ka oo waa caawa waa jimce. exactly. waayo intaasi waa sideeba file loo sameeyay ay noqonaysaa. si kale haddaynu dhigno sidana waa lagu arki karaa. waa kan si kalena waynu ku arki karnaa faylkii aynu sameynay maxaynu qornay. sidee baynu faylkii aynu sameynay u arki karnaa?
waxaad u arki kartaa maxay waxaad qoraysaa ls baad qoraysaa intaas qoraysaa ls ayaa aad qoraysaa dabeetana l markaad qorto iminka for example haddaynu qorno iminka ls haddaynu qorno halkaa maxaad inagu failkeenu sameynay magacii waxaanu sameynay failkeenu sameynay wuxuu ahaa file 1 soo ma waa ka halkaa aad ka arki karto failkeenu sameynay waa inaga halkaa ka aragnay intaasi waa hal step baynu marka qaadnay oo ah sideebaa file loo sameeyaa iyo sideebaa failkii aad samaysay description loogu sameyn karaa oo comment loogu qori karaa wax qoraal loogu qori karaa iyo sideebaa loo arki karaa saddexdaa waxaan u malaynayaa inaad fahamteen waynu ka soconaynaa stepka intaa xigaa weeye waxaynu u gelaynaa touch oo ah qodobkeena labaad touch muxuu ahaa qodobkeena labaad aynu dhiganayna maanta aynu focuska saarayna touch files waxaa la yidhahdaa inaad faylal fara badan samayso fayl fara badan inaad samayso hal mar inaad faylal fara badan samayso kaasi wuxuu shaqeeyaa koodhkaasi wuxuu shaqeeyaa hal fayl umaad samayn kartaa wuxuu go-aaminayaa inaad hal ilbiriqsi hal fayl samayn karto waaya laakiin kan kale ee ah touch isaga wuxuu go-aaminayaa maxay inaad faylal fara badan samayn karto oo bilcagsi bay isku yihiin waaya haddaba aynu bilowno waxaan leenahay touch file space baad leedahay file 2 space file 3 labadaa file baynu sameynaynaa control iyo d baad qoraysaa enter baad leedahay control iyo z na waad taabanay dabeetana sidee baynu arki karnaa labadan file inaynu laba file oo kala sameynay marka hore maxaynu sameynay hal file baynu sameynay sooma oo la odhanayay file 1 waaye iminka waxaanu sameynay laba file haddaba labadii file baan doonayaa inaan arko absolutely waxaan taabanaynaa sidaynu hore usoo sheegnay ls baynu taabanaynaa oo inoo saamaxaya inaynu faylashii arki karno locationkii la dhigay halkii la dhigay waaye inter baad leedahay waa kuwa labadii fileba waa kuwa labadii file aynu sameynay file 2 iyo file 3 file 2 na waa kaa file 3 na waa kaa halkaa waxaad malanayaa inaad fahamteen labadii filebana waa kuwa labadii filena waa kuwa waay haddaba su-aal kale iyaduna muhiimaa jirta oo noqonaysa sideba haddaba failashan loo saari karaa sideen u dhili garayn karaa ilmasaloo kale for example mararka qaarkood waxaa kugu dhici karta inay failashu kugu farabataan sideebaad iskaga saari kartaa oo aad u dhili garayn kartaa absolutely failkii aadan doonaynin saa u dhigi karta ilmasaloo kale iminka waxaan saarayaa file 1 baan doonayaa oo kana file 1 oo kana ayaa waxaan rabaa inaan saaro bal u fiirsada saan u saaro waxaan taabanayaa r iyo m ayaan taabanayaa r iyo m oo loo soo gaabinayo remove dabeetana failka magaciisi baad qoraysa failka magaciisii ayaad qoraysa maxaad leedahay file 1 iga saar afwan waxaan leenahay r iyo m dabeetana space file file 1 exactly iminka maarta inuu baxay waaye maxaynu samaynay waxaynu nidhi waxaad iga saartaay failkaa file 1 saar oo remove garee oo delete garee bal aynu hubino haddaba in failkii baxay failkii koowaad ayanu saarnay ma baxay mise ma bixin bal aynu soo hubino ls baan taabanayaa ma aragtaan file 1kii wuu ka baxay meesha ma aragtaan ma yaallo waaye intaa waxaan malanayaa inaad si fiican aad u fahamteen ayaa aan u malaynayaa cashirkeena maanta intaas ayaynu qeybta koowaad ka dhigaynaa qaybaha dambena casharo kaloo intan kasii ballaadhan oo xiisale ayaanu kusii qaadan doonaa laakiin maanta qeybta koowaad intaa ayaynu ku gabagabaynaa fadlan haylow